anugu ma rabo inaan hadda idin jeediyo oo idin sheego waajibaadkiina sababtoo ah waa la idin soo baray idinka iga yaqaan ma rabo inaan idin jeediyo farsamada ciidannimo ee la idinka baahan yahay waa la idin soo baray ma rabo inaan idin sheego disciplineka looga baahan yahay askariga waxaan hubaa in la idin soo baray laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego in shaqada koobaad waajibka koobaad ee qarankan u yaalla in uu yahay ama ay tahay arrimaha amniga marka maadaama shaqada amnigu iyo xoreynta dalka iyo difaaca dalku ay tahay muhiimadda koobaad ee dalkan uu leeyahay askariguna waa qofka koobaad ee dalka maxaa jira shaqada ayuu qofku shaqada uu qabanayo ee laga sugaayo meeshay kaga jirto qaranka ayuu asaguna bulshada Soomaaliyeed kaga jiraa sidaa darteed askarigu qof kasta wuu nooga muhiimsan yahay qof kasta wuu ka sareeyaa waa muwaadinka ugu qaalisan ee ugu qiimaha badan waa wuxuu ku mutaystay inuu calanka sidaa hadda u dhaarateen inaad gacantiina uu ku jiro calanka Soomaaliyeed ma yaallo laguma kaydiyo madaxtooyada laguma kaydiyo xafiis kale wuxuu yaallaa wasaaradda gaashaandhigga muxuu yaallaa wuxuu u yaallaa taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed lagu wareejiyaa awooddii iyo gobnimadii iyo madax banaanidii dal uu leeyahay waxaa lagu aaminay ciidankiisa xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidankiisa xoogga innagana waxaan ku aaminay ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamadeena kale sidaa darteed waxaad ogaataa haddaad adigu xumaato dalkii waa xumaaday haddaad liicdo dalkii waa liicay haddaad fulay noqoto dalkii waa jabay haddaad waajibaadkaaga gudan weydo dalkii waa u dhammaatay sidaa darteed waxaan mar kale ku celinayaa inaad dareentiin ood ogaatiin kaalinta aad kaga jirtaan bulshada iyo ahmiyadda aad u leedihiin qarankan iyo calankan iyo dalkan xorriyaddiisa madax bannaanidiisa difaaciisa xoreyntiisa markii dal la xoreeyo oo la difaaco oo amnigiisa la sugo ayay waxbarashadu timaadaa oo caafimaadku yimaadaa oo horumarku yimaadaa oo dhaqaaluhu yimaadaa laakiin dalaan xor ahayn caafimaad ma leh oo waxbarasho ma leh oo dhaqaalo ma leh waxay daris yihiin faqri iyo baahi iyo xanuun ayay daris yihiin hormuud baa tihiin sidaa darteed waa inaad hormuudnimada dareentaan marka mas-uuliyadda idin saaran intay leegtahay waa inaad dareentaan mas-uuliyadda idinkaa sheegay waa midda uu qofku u bixiyo waxa ugu qaalisan oo dhiiggiisa ah marka waxaa la rabaa meeshaad markaan ka hadlayno inaad hoosta ka xariiqdaan in askariga Soomaaliyeed maanta ay hor taalo arrin aad u weyn marka taas waa qodob waan idin sheegayaa waa arrin idin hor taalla muhiimaddaas ayaa idin taalla dal aan nabad ahayn cadow uu meelo badan ka joogo xuduudiisu furan yihiin oo xuduudihiisu furan yihiin ayaa waxaa loo baahan yahay in xuduudihiisa la soo xiro cir dhul iyo bad waxaa la rabaa in laga xoreeyo cadowga waxaa la rabaa in ammaankiisa la sugo idinkaana la idinka sugaaya waxaanad hadda sheegteen inaad diyaar u tihiin sidaas ayaana u qaadanayna ka dhabayn baan u baahannahay siduu taliyuhu sheegay qodobka labaad
waxaan rabaa inaan idiin sheego inaad jihaad gelaysaan ma aha dagaal caadi waa jihaad askarigu inuu iska soo baxo oo deedna uu dagaal caadiya uu socdo ma aha waa inaad hadda ogaataan waxaad gelaysaan waa jihaad dagaal qabiil ma aha dagaal dara gaara laga leeyahay ma aha dagaaladii Soomaalida ee iscayrcayrsiga ma aha dagaalka maanta lagu jiray waa dagaal jihaad awaay sidaa darteed haddaad mar jihaad ku jirto waxaa lagaaga baahan yahay akhlaaqdii mujaahidku akhlaaq buu leeyahay akhlaaqdiisa waxaa ka mid ah inuu cibaadada Ilaahay guto salaad ugu horeyso askari Soomaaliyeed oo salaad tukanaynin askari uu soo noqon iska joogo meeshuu raba aado waxba kama tarayo maxaa jira jihaadku wuxuu u baahan yahay akhlaaq jihaad buu u baahan yahay askari Soomaaliyeed oo drug isticmaalayay yuusan askarta soo dhexgelin maxaa jira mujaahid drug ma isticmaalo dhaqan mujaahid baa loo baahan yahay waxaad ogaataan in fara badan dhalinyaro badan saraakiil badan oo qiimo badnayd oo halkan ka graduate garaystay ayaa saaka ama maanta inaga hooseysa oo shahiiday way badan yihiin aad bay u badan yihiin hebel ma leh ayagoo dalkan difaacayay ku shahiideen dariiqii ay ku shahiideen inaad horay ugu socotaan oo waxay doonayeen aad xaqiijisaan ayaa la idinka rabaa waxay doonayeen dalkan inay xoreeyaan cadow ka xoreeyaan waxay doonayeen ubadka Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed inay nabad ku seexdaan kuna soo toosaan waxay doonayeen dalkooda inay faqriga ka saaraan waxay doonayeen in ay karaamadii iyo sharaftii iyo qiimihii ummadda Soomaaliyeed inay soo celiyaan iyo midnimadii maanta waxaa halis ku jira kaliya ma aha amnigii midnimadii baa halis ku jirta qarannimadii baa halis ku jirta waxaan u baahannahay marka haddii physically aad dhisan tihiin maskaxdana maskaxdiinu inay buuxdaan rabnaa oo ay macaanidaas aan sheegayno wadaniyadda muslimnimada iimaanka soomaalinimada geesinimada isjacaylka macaanidaasi maskaxdiina inay ka buuxdaan u baahannahay laakiin wuxuu qofku bani aadamku wuxuu micno ku yeeshaa qiimihiisu uu leeyahay waxa maskaxda ugu jira iyo iimaanka uu rumaysan yahay iyo caqiidada uu rumaysan yahay iyo wuxuu ka duulay waxaan u baahannahay oon codsanaynaa macallimiinta ka codsanaynaa iyo dhammaan saraakiisha iyo dadka madaxda in xoogga la saaro maskaxda iyo caqiidada askariga Soomaaliyeed burbur baa inagu dhacay dhowr iyo 30 sano soo socday dadkeena dhibaato badan baa gaadhay xanuuno badan baa ina gaaray dhibaatooyin badan baa inagu soo dhacay waxay nagaga tageen raadad aan qurux badnayn waxaan u baahannahay marka jidadkaas iyo xanuunadaas jira ee wada naqaano qabyaaladu ka mid tahay oo hanyaridu ka mid tahay oo wadaniyad la'aantu ka mid tahay oo naftii hurannimada qofku uusan dalkiisa u huraynin ay ka mid tahay waxaan rabnaa taa in laga baxo waxaan rabnaa inaan taa ka guurno oon u guurno wadaniyad soomaalinimo geesinimo wixii askarigeena Soomaaliyeed iyo kii aabayaalkiin iyo awowyaashiin lagu yaqiinay halkaas inaan u guurnaan u baahnay wadan kasta oo qurux badan oo qiimo badan